Ramadaan Kariim dhammaan daawayaasha qiimaha badan waxaan idinla wadaagayaa jadwalka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku shaqeyn doono. Inta lagu guda jiro bisha barakeysan waxaan idinla wadaagayaa laba sheeko oo kamid ah sheekooyinka dunida loogu jecel yahay. Kow, sheekada kun habeen iyo habeen. Laba, sheekada dabadeed cidna ma harin. Si maalinle ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Haddaba si aad ugu xirnaato taxanahan, fadlan channelka subscribe saar. Waa maxay sheekada kun habeen iyo habeen? Waa mid ka mid ah sheekooyinka loogu jecel yahay dunida. Waa sheeko la isku khilaafsan yahay asalkeeda halka ay ka soo jeedo, waxaana lagu xiriiriyaa inay ka soo jeedo wadamada Ciraaq, Hindiya iyo Masar. Sheekadan lama oga cid qortay, balse casrigii dahabiga ee khilaafada Cabbaasiyiinta ayaa sheekadan la soo tarjumay, halka Ingiriiskana lagu tarjumay sanadii 1740. Imse luuqadood ee sheekadan ku tarjuman tahay? Ma jirto luuqad caalami oo aysan ku tarjumsanayn sheekadan kun habeen iyo habeen. waana sheekada loogu akhris badan yahay dunida. Sheekadan waxaa laga sameeyay filmaan iyo musalsalo caalami ah. Sheekadan aan xitaa ma qiyaasi karo inta ay soconayso, balse waxaan idin ballan qaadayaa in aan idin dhammaystiri doono soo gudbinteeda sheekadan kun habeen iyo habeen. Waxa ugu muhiimsan aan huba ayaa ah inaadan marnaba ka caajisi doonin la socodka taxanaha kun habeen iyo habeen. Waa sheeko aad u macaan, waxaana kala socon doontaa channelkan SYC Media. haddaba si aysan kuu dhaafin ama aysan kuu seegin sheekadan, fadlan rukumo channelkan adigoo subscribe saaraya. Sidoo kale asxaabtaada la wadaag si aysan u seegin sheekadan aad ku macaan. Waxaan rajaynayaa inaad igu dhiirigelin doontaan soo gudbinta aan idin soo gudbinayo sheekadan xiisaha badan, maadaama aan jeclaystay inaan idinla wadaago mid ka mid ah sheekooyinka loogu jecel yahay dunida. waana sheekada kun habeen iyo habeen. بروح الشباب وعزيمة الرجال. waa maxay sheekada dabadeed cidna ma harin? Waa sheeko aad u xiiso badan, sidoo kale aad u macaan, waxayna ka mid tahay sheekooyinka dunida loogu jecel yahay. Anigana halkan ayaan idinkugu soo gudbinayaa sheekadan dabadeed cidna ma harin. Haddaba si aysan kuu seegin ama aysan kuu dhaafin sheekadan taxanaha ah kana baxayso channelkan SYC Media, fadlan rukumo channelkan adigoo subscribe saaraya. La wadaag asxaabtaada si aysan u seegin sheekadan. waxaan rajaynayaa inaad igu dhiirigelin doontaan soo dhamaystirka taxanaha sheekadan dabadeed cidna ma harin. Sheekadan waxaa lagu tarjumay in ka badan 100 luuqadood oo caalami ah oo ka mid ah afkeena hooyo. Qoraayada sheekadan waxay dhimatay 12 January 1976. Marwada sheekadan qortay sidoo kale waxay qortay in ka badan 80 sheeko oo u badan sheekooyinka dambi baarista ah. Sheekooyinkeeda waxaa ugu caansan sheekada diiradda inoo saaran maanta, sheekada dabadeed cidna ma harin. Sheekadan waxay ka bilaabanaysaa 10 ruux oo aan waxba ka dhaxayn isugu yeerimo dahsoon jasiirad lama degaan ah. Haddaba aan eegno 10 shakhsi oo qosaysa sheekadan. 1, garyaqaan Wargrave. 2, Firaa Garestron. 3, Philip Lombard. 4, Mary Brinty. 5, Jarnal Markan. 6, Dr. Armstrong. 7, Tony Maristron. 8, Demi Bare Pirlof. 9, Mudane Rogers. 10, Marwo Rogers.